kadib socdaal qaatay muddo dhowr maalmood oo ku mariyay qaybo kamid ah Puntland wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo xubno ka tirsan wasiirada Puntland ujeedkiisuna waxa uu ahaa inuu arko baahiyaha dhabta ah ee ka jira deegaanada Puntland ugu dambeyntii wasiirku waxa uu soo gaaray magaalada Garowe isagoo kormeer ku sameeyay habsami socodka shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe wuxuuna kulan saxaafadda dibadjoog ka ah la qaatay senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole madaxweynihii hore ee Puntland kormeerkaasi kadib wasiirku waxa uu gudbay garoonka ku meel gaarka ah ee diyaaradaha ee Kanoko isagoona warbaahinta uga warbixiyay intuusan ka duulin garoonka diyaaradaha ee Kanoko una laaban magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay inay wax ka qaban doonaan baahiyaha ay soo gudbiyeen dadka deegaanada Puntland waxaan kala mahadnaqayaa dhammaan shacabkeena soo dhaweeyay magaalooyinkii iyo gobolladan booqanay aad iyo aad ayaan runtii u dareemaynaa kalgacaltooyo iyo walaaltinimo iyo ehelnimo iyo Soomaalinimo iyo wax kasta nooc kasta marka insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaalihii aan ku ballanay aan ku soo heshiinay inaan wixii aan ka fulin karaan ka fulino waxaan kula dardaarmayaa wasiirada Puntland ee safar ugu heliyay in iyagana qaybtooda wixii lagala dardaarmo garanayaan ee fuliyaan dowladda federaalka wixii kaga aadan gobollada aan tagnay iyo dhulka aan tagnay waxa xaq u leeyihiin insha Allah isku soo dadaalayna waxaan rabnaa qof kasta Soomaaliya jooga inuu xaq u leeyahay helo aan cidna laga takoorin ama looran ma heli kartaan waxay xaq u lahaayeen marka taas waxaan rabnaa dadka wax xaqiijino inaan u maqannahay insha Allah soo dadaali doono Soomaaliya oo dhan aan u maqannahay gobollada soo socdana aan tagi doonaa haddii Allah idmo waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed abaaruhu iyo masiibooyin ku dhacaan in aan qorshe ula nimaadno abaar ma celin karo laakiin si looga gaashaamo lahaa loogu adkaysan lahaa inaan ka shaqeyno haddii Allah idmo waa mahadsan yihiin dhammaan dadkii aan wada soconay xildhibaanada xamar ka yimi maanta halka yimi madaxweynaha soo dhaweynayana waa mahadsan yihiin shaqo culus oo idin bilaabatay ilaahay idin fududeeyo annaguna shaqooyin kale aan aadaynaa marka saasaan isku ognahay aad iyo aad u mahadsantihiin Maxamuud Jamaal Maxamuud Dooxo telefishinka Home Cable magaalada Garowe.